بسم الله الرحمن الرحيم marka la ku soo dhawaada barnaamijkii weydiinay warcelin xalqadiisii sideedaad maanta waxaan isku dayayaa inaan ku soo gudbiyo halkan aan idin kula wadaago mid kamid ah weydiimaha dad fara badan ay soo weydiiyaan oo ah waxaan dareemayaa in ay kalsoonidii ugu yar tahay sidee baan kalsoonideyda kor ugu qaadi karayaa waxaan jeclahay inaan marka muuqaalkan aan ku soo gudbiyo muhiimadiisa kama warramayo waxaan u maleynayaa inaad in badan idin kamid ah muhiimadda ay kalsoonidu leedahay qofku inuu isku kalsoonaado naftiisa ku kalsoonaado inaad ka dharagsan tihiin haddii aan dareemo in baahi loo qaban insha Allah muuqaal kalan muhiimadda iyo awoodda qofku inuu naftiisa ku kalsoonaado aan ka duubi doono haddii Ilaahay yiraahdo laakiin muuqaalkan waxaan jeclahay inaan tabo iyo muxuu ahaa xeelado yaryar oo qofku uu kalsoonidiisa kor ugu qaadi karayo inaan idin kula wadaago waliba si gaar ah waxaan jeclahay inaan idinku soo gudbiyo muuqaalkan ilaa 5 hab oo qofku uu kalsoonidiisa muddo dheer kor ugu qaadi karayo oo sidiisa uu ku dhisi karayo kalsoonidiisa ka hor inta aanan ka warramin tabaha ama talaabooyinka aanan ka warramin waxaan jeclahay in aan kolka hore aan fahan khalad ku jira kalsoonida nafta inaan tilmaamo dhowr weeye laakiin mid baan ka soo qaadanaa runtii oo muhiim ah xilligan ama mowduucan xidhiidh leh kalsoonida naftu ma aha wax ay dadka qaar ku dhashaan dadka qaarna aanay lahayn ma aha wax dadku qaar kaliya ay ku dhashaan ma aha kalsoonida naftu waxa weeye waa wax ku xidhan xilliyada ay xaaladaha kala duwan ee qofka noloshiisa qofku xaalado doorar fara badan buu qofku ka ciyaaraa xaalado kala duwan qofku wuu maraa nolosha marka xaaladaha kala duwan bay ku xiran tahay ma aha wax se qof ma jiro hadaan si kale u yiraahdo qof ma jiro 100% qayb walba noloshiisa kamid ah oo kalsooni buuxda ka qaba sidoo kale ma jirto qof qayb walba noloshiisa kamid ah kalsooni darro ay ka hayso aan si kale u yiraahdo aan xalqa yaaba qofku inuu wiilku xalqa yaaba marka uu rag la kaftamayo ama uu rag la joogo waxa laga yaabaa inuu kalsooni buuxda isku qabo oo nin rag u muuqdo oo ma garanaysa aanay dhibaynin inuu fikradiisa inuu soo bandhigi karayo laakiin waxa laga yaabaa gabadh maalinka uu damco inuu la hadlo in ay ka kala daadato wixii afkaar iyo fikrada iyo aqoon u hayay inay ka kala daadato waxa laga yaabaa qofku in uu markuu saaxiibadiisa la sheekeysanayo iyo marka uu dadka uu yaqaan la la hadlayo in aanu baqin laakiin marka uu golo soo istaago dad qof oo aan aqoon uu la hadlo inuu baqo marka wax ku xidhan xaaladaha kala duwan ee nolosha qof waliba waxa jira qaybo noloshiisa kamid ah ama xaalado noloshiisa kamid ah oo uu kalsoonidiisa kor u kacsan tahay sidoo kale waxa jira xaalado qofku marka uu galo ama goobo marka uu tago ee kalsoonidiisu hoos u dhacdo marka qof ma jiro mar walba ama dhinac walba ee kalsoonidiisa ka buuxdo maanta qofka aad isleedahay dadku ugu kalsoon yahay hadii uu damco inuu ka hadlo ama uu qabto wax aan hore u aqoonin kalsooni darro dareemaya talaabada koowaad marka waxa weeye qaybaha nolosha ay kalsooni darrada ka hayso qor dhinacyada nolosha ay kalsooni darrada ka hayso qalin iyo warqad inta qaadato qor xagee bay kalsooni darro ka haysaa xilliga iyo xaaladda markaad ku sugan tahay ayaad kalsooni darro dareentaa in badan oo kamid ah xaaladaha iyo xilliyada ogaanshaha kaliya aad ogaatay ayay ku daweysmi karaysaa qaybaha kalena waxaad sameyn karaysaa inaad joogtayso wixii oo aad ku celceliso wixii aad samayso waayo waxaan hore soo tilmaanay yaani ma jirto qof xaalad kasta ama qayb kasta noloshiisa kamid ah 100% kalsoonidiisu ay sareyso qaybaha ay qofku kalsoonidiisu hooseyso waxa weeye waa qaybo u baahan inuu ka shaqeeyo waa qaybo u baahan inuu horumariyo habka labaad ama talaabada labaad kalsoonida kor ugu qaadi karaysa waxa weeye in aad ogaato ama aad ku caadiyiin waxyaabaha aad ku wanaagsantahay qof wali wanaga naga mid ah waxa jira wax ku wanaagsan yahay bal waa daraasadku waxay tilmaamaan waxa jira wax aad 15,000 qof oo kugu hareeraysan aad number 1 ku noqon karayso yaani maxay yihiin waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay saaxiibadaada waalidka dadka ku yaqaan maxay ku yiraahdaan waxa hibaad u leedahay waxa aad hibooyinka u leedahay dadka kugu tilmaamaan ay dadku isku wada waafaqaan saddex qof iyo wixii ka badan adiguna aad kalsooni badan ku qabtay inaad waxa ku fiican tahay qoro deetana xirfad u bedel hibada aan xirfada loo bedelin lagama miro dhaliyo
ama wax ma soo kordhiso imise qof baad garanaysaan oo hibooyin leh laakiin hibooyinka waxay u baahan yihiin in aad ka shaqayso oo aad wax ku qabato deetana ay xirfad noqoto xirfadaas waxay isku bedelaysaa achievement qofku inuu wax qabad yeesho wax soo saar yeesho marka waxa aad ku fiican tahay ama waxa aad ku fiican tahay qoro deetana mid kamida xooga saar oo ku wanaagsano talaabada saddexaad ama habka saddexaad kalsoonidaada kor ugu qaadi karayso waxa weeye inaad macluumaad fara badan kayd macluumaad inaad yeelato inaad wax badan wax akhriso inaad golaha sida ama meelaha lagu soo bandhigo aqoomaha kala duwan sida TED Talk oo kale Google Talk oo kale iyo channelada aadka u farax badan ee kumanaan kunka ah ee aqoomaha lagu soo bandhigo inaad ku xidhnaato wax badan aad wax akhrido runtii qofku marka uu wax badan wax akhriyo kalsooni buu dareemayaa inuu golooyinka iyo meelaha la isugu yimaado inuu fikradiisa ka dhiiban karayo aad bay runtii arinta muhiim u tahay qofku marka uu information badan hayo oo maskaxdiisu ay wacaal fara badan hayso noloshiisa laga dareemaya yani iska badaa in aad gola ka hadli karayso wax aad ku hadli karayso ama aad gola la iman karayso dadkuna kugu qiimeeyaan oo kugu qadariyaan inaad la iman karayso ka dhaafe noloshaada dhan bay ka muuqanaysaa marka aad wax badan aad wax akhrido runtii aad bay arinta muhiim u tahay dad u baahan tahay inay kalsoonidaadu ay kor u qaadanto waxaad u baahan tahay inaad wax badan wax akhrido aad bay muhiim u tahay arinta talaabada afraad ee aad kalsoonidaada kor ugu qaadi karaysana waxa weeye in aad ka tagto track success ah yani raad wax qabad ama raad achievement inaad ka tagto ama aad gadaal markaad noloshaada aad u eegto historyga markaad gadaal u eegto bilii la soo dhaafay sanadkii la soo dhaafay labada sano la soo dhaafay raad wax qabad inaad leedahay taana maxay ku iman karaysaa inaad marka hore aad dhigato ahdaaf yar oo aad qaban karayso oo aan hawl fara badan kaaga baahnayn laakiin haddaad qabato aad ku guuleysan karayso ama aad ka mira dhalin karayso ama aad gaari karayso raadadka faraha badan ee yar yani yaraantu marka hore macno weyn bay leedahay inaad waxba qaban ayaa ka daran in aad wax yar qabato waxyaabaha yaraad qabanayso runtii way isbiirsanayaan deetana waxay ku siinayaan in aad naftaada awoodaaga aad ku kalsoonaato kalsoonidu sideedaba qofku inuu naftiisa ku kalsoonaado macnaheedu waxa weeye inaan bilowga hore ku bilaabay baa ahayd waxa weeye qofku awoodihiisa inuu wax qaban karayo inuu waxa uu doonayo uu ka mira dhalin karayo hadduu doonayo inuu dad la hadlo inuu isagoo baqin uu ka mira dhalin karayo oo dadkii la hadli karayo fikradiisa gudbin karayo hadduu doonayo inuu wax qoro hadduu doonayo inuu ganacsi bilaabo wax wal hadduu doonayo dadka qof uu ka heebeysanayo inuu la hadlo yani waxa weeye inaad awoodaada aad ku kalsoon tahay inaad waxa aad doonaysa aad qaban karayso marka kalsooni waxay ku siinaysaa marka aad waxyaabo fara badan oo yaryar aad qabato way isbiirsanayaan deetana waxay ku siinayaan inaad u eegi karayso aad awoodahaaga aad u arki karayso inay yihiin awoodo aad ku kalsoonaan karayso waxa aad doonaysana aad qaban karayso marka ka tag ama yeelo raad wax qabad success track waa inaad leedahay markaad gadaal aad u eegto 3 bilood 2 bilood 5 bilood sanadkii la soo dhaafay 2 sano la soo dhaafay markaad gadaal u eegto noloshaada maxaad achievement aad qabatay meeqa yoolood dhigatay ayaad gaadhay oo aad xaqiijisay arinta runtii aad ay muhiim u tahay habka shanaad qaybtan hore ku soo gabagabeynayo waxa weeye aad kalsoonidaada kor ugu qaadi karayso inaad yarayso waqtiga aad la qaadato dadka yani habka taban u fikra dadka negative-ka ah dadka aan potentialka ama karti iyo karaan aan ka dhaxarag dadka aan ku dhiirigelin dadka wax qabadkaaga iyo waxa aad soo kordhiso aan ku farxin dadka iska dhaaf inaad waxaad u baahan tahay inaad ku bedesho dad adigu wax badan ba qaban ku amaani karaya ku sheegi karaya inaad hor socod leedahay inaad karti iyo karaan leedahay inaad hiban leedahay yani waa qof muraad ku noqon karaya ayaad u baahan tahay inaad noloshaada ku soo biiriso runtii arimaan aad baan uga hadlay muuqaalo fara badan baan kaga hadlay arintan aad bay muhiim u tahay ka jar noloshaada waqtiga faraha badan aad la qaadanaysa iska yaree haddaadan jari karaynin xitaa dadka negative-ka ah aan arki karaynin walxaha aad ku fiican tahay iyo wanaaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gudahaaga uu dhigay ee ku xasdaya dadka noloshaada ka jar haddaadan ka jari karaynin waqtiga aad la qaadanayso
ka yare inaan muuqaalkeena maanta aan kusoo gabagabeynaya aad baad u mahadsantihiin intaan muuqaal dambe iyo barnaamijka weydiin warcelin mar dambe aan dib hawada ugu kulmi doono aad baan idin salaamaya waxaan idin rajeynayaa khayr aad u fara badan wax la akhriyo inta maan ku gaajaysan yahay guuli waa wali asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu